السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالي ونكسر لما نبلش صوماليات يا مال كستو أتشوكتان سلوا هذا الماتين قضبا مهمة أيان إن شاء الله تعالى كهل الدونة وحنا قاعد سنة مركز إن شاء الله تعالى إن تسيق قيبسان سي داودياشو أي نوجو بطان وأتقعنتا فرطان هدي اللي يريح طبعا قضبضة aan barnaamijka uga hadli doono haddii la yiraahdo waxay ku qoran yihiin qaybta title-ka barnaamijka si maaragtay qurux badanna waan uga hadli doonaa dadkana informationna badan ayaan la wadaagi doonaa laakiin bishardi waa inaad qaybisaan haddii la yiraahdo oo aad dadka gaarsiisaan wax badan ayaa jira oo isku dhex walaaqan oo dadku aysan fahansanayn ayna u baahan yihiin runtii in xoogaa laga qanciyo marka laba qodob ayuu barnaamijkan ku saabsanaan doonaa haddii la yiraahdo marka koowaad waxa weeye khilaafka la sheegay inuu u dhexeeyo madaxda federaalka Soomaaliya iyo laba qodob oo inta badan lagu laalaabtay waxaan baraha bulshada ku arkaynay 24 saac ugu dambeeyay dad dhahaya yani ra'iisul wasaare khayre ayaa wuxuu khiyaameeyay madaxweyne farmaajo waaya mar waxaad moodaa laba nin oo ganacsi ku wada jiray oo uu ninka kale dukaankiisa iibinayay ee markaasi uu wax ka khiyaamay qaabka wax loo dhigayo marna waxaad moodaa in ra'iisul wasaaraha wax in lagu haysto aan xaq loo lahayn lagu haysto waayahay haddaba khilaafka meesha yani salka uu haduuba jiro iyo waxa la isku haysto iyo dadka hadda ra'iisul wasaaraha doonaya inay baraha bulshada ku weeraraan waxa ay ku haystaan rasmiga insha Allah taala ayaan idin wadaagaya waxaana jeclahay anigoon faanin baraha bulshada dadka isticmaala marka la yiraahdo qofka ugu xaqiiqda badan inaan ahay ama aan kamid ahay dadka ugu xaqiiqda badan oo dadka khiyaaliga yani ku sheekeeya aanan ahay dad waxaa jira wax ay iyagu mala awaalin dadka u sheega dad waxaa jira wax iska qiyaasa oo muxuu ahaa xogaa caqligu xataa uusan aqbalayn ummadda u sheega laakiin anigu waxaan isku dayaa in aan dul istaago pointiga saxda ah iyo meesha waxa ka jiro rasmiga ah marka insha Allah taala waxa weeye qaybiya oo dadka la wadaaga taariifinta ayaan bilaabaya insha Allah taala marka hore si aan u ogaano cidda aan ka hadlayno cidda ay tahay inta badan anigu reer nabadiyo nolol aan ahay nabadiyo nololna labadaas nin oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ugu ton weyn 3 sano iyo barkii la soo dhaafana waxaan ku shaqaynaynay in yani si wada jir ah dawladda loo taageero waxaase la rabaa in mar haddii waa la ishayaa la leeyahay horta bal aad ogaato waa kuma farmaajo waa kuma khayre labadan horta nin kasta waxa uu yahay si aad khilaafka guntiisa iyo qaabka wax u socdaan aad u fahanto marka hore halkan ayaa loo baahan yahay inaad fahanto ra'iisul wasaaraha haddii aan ku hormaro kulli anigu inta yani aan ka maqlay horta mid baan idin cadaynayaa anigu labada ninba si toos nin hor fadhiista ma iyo aqoon ma lihi aqoon waxa la yiraahdaa dadka dhageysta waxa la yiraahdaa saddex qofka aysan idin dhex marin aqoon uma lihid ninaadan jadiin la wadaagin ninaadan jid la qaadin iyo ninaadan jabad la seexan waxaa la yiri ma taqaanid saddexdaas qofka hadday idin dhex maraan waxaad dhihi kartaa waxaan u leeyahay aqoon buuxda laakiin haddii aadan saddexdaas qofka aysan idin dhex marin wax aqoonad u leedahay ma jiraan waxa kaliya oo aad ka haysaa waa public information laakiin dadkan dad waxaa jira saaxiiballa ah oo ku xiran oo ka warqaba oo muxuu ahaa yani dabeecadahooda iyo nin walba qaabka uu shaqeeyo iyo inta public ah kulli anagu aan ka arag ra'iisul wasaaraha haddii aan ku hormaro waxa weeye nin dalka sanadihii ugu dambeeyay ku sugnaa hay'ado badan oo maaragtay waddanka gudihiisa ka shaqeeya qaarna madax u ahaa qaarna la shaqayn jiray waa nin aad u garanaya yani nidaamka Soomaaliya hadda sida uu yahay waxaad ogtiin markii ra'iisul wasaaraha la magacaabay in maamul goboleedyada dhan ay soo dhaweeyeen oo aqoonsadeen ay dhaheen waa niman garanayno oo qolo walba ay tiri shaqaana dhex martay xilli hebel waa naqaana waan garanayna laajil dalika nin fahansan يعني soomaalida waxa ay rabto
iyo sida wax u yaaliin iyo qolo walba meesha laga maro weeyaan liajli daalika wuxuu aaminsan yahay oo xasan cali khayre ku shaqeeyaa in qofka Soomaaliga ah loo baahan yahay in يعني marka hore lala hadlo oo lala fariisto oo lala sheekaysto oo bal waxa uu baahan yahay iyo waxa uu doonayo la weydiiyo ugu dambeeyna hadii xal la waayo xalka ugu dambeeyo yani in laga dhigo awoodda dawladda laakiin awoodda dawladda in wax laga bilaabo ma aaminsana sababta wuxuu arkaa in dawladnimada Soomaaliya wali dhisma ku socdo oo muxuu ahaa dadku ay kala يعني إردوبين أين تعددك إن لسكو سوعلي لأجل ذلك قفك الصومالي مركا هور إن لا فريستو ليرا وربحات ربطا يسيد دوري سايو آمن سيئة مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو الله بكم كويت طبنكي أيو يمدي محوها يلا بكم يتوقع من ما حلا قدام عباية مسكحة كما هيو على كل حال حليلاس أيو حبر يمد يسيقو كي يمد قربة مرة ربح حول أورسديتك دالك أيدو دولو كجر تكتغي maalmo kooban ayuu joogay insha Allah taala sida lagu magacaabay waan keeni doonaa danta kalifaysa cid keentay Sharif Axmed cid u geysay waxa soo dhan mar kale aan ka hadli doonaa hadii la yiraahdo madaxweynaha xilligaas dalka uu yimid ra'iisul wasaare si fudud ku helay kulli ragaa ka shaqeeyay insha Allah taala qaran inta qaran nool yahay waana public garay doonaa insha Allah taala mar kale aan ka hadli doonaa hadda barnaamijkan ka mid maaha 6 bilood uu joogay 6 bilood markuu joogana waa tii meesha laga eriyay wadankii uu ka yimid Mareykanka dib ugu laabtay haddana waad ogtihiin iyadoo doorashada ay maalba ka dhiibeen magaalada soo galay muxuu ahay waa la doorto calafkiisa ilaahay ka dhigay kama xibin liajli dalika information badan oo horta gudaha wadanka information buuxa oo gudaha wadanka madaxweynuhu nin haya ma aha iyadoo ay saas tahay haddana wuxuu aaminsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka mid ah dadkii u soo ololeeyay oo muxuu ahaa sida waliba freega ugu ololeynay dad campaigner ah oo lacag la siinay way jireen laakiin anigu dadkii aan shilin qaadanay u ololeynayaan kamid aha adinka marqaatiga meeshii ugu jira wuxuu markaa aaminsan yahay haddii aan ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa weeye qof kasta oo Soomaaliya waa shacab waan aniga laga amar qaataa madaxweynaha taas uu aaminsan yahay ku xamama beenda ka sheegin xataa ra'iisul wasaaraha ku dar isaga wixii ka soo haray Soomaaliya xataa ra'iisul wasaaraha ku dar wuxuu aaminsan yahay inay yihiin dad shacab in isaga dhageystaana ay waajib tahay لأجل ذلك أي لبضان هرت السلاس وكلا دوين وننا وانن ندتك لا معامله الله وريستو أو يعني مرك هرا لا فريستو حل راديو آمن سن ننا وانن آمن سن ضدك وحي سجا كسوار إن الشعب يهين حدي أي تلاديس الديدان نمحوها وحي أجودة والدولة الله يستو لا استعمار لبضاس جد أي هرت لبضان مرك هرا يعني أي هو كلا سعلان دان كودا سداس دان كودا سياسي سداس يلا وياه waxaan maqlaynay ra'iisul wasaaraha in lagu eedeeyay dad maaragtay madaxweynaha ku hayba oo meelaha live-ka wax ka hadlayo wax arkayno dhahayo qaa'im buu ahaa uu khiyaameeyay kismaayo muxuu ahaa sidaan uu ka yeelay Axmed Madoobe hoos kala socday maamul goboleedii la socda kale ahaa sidoo kale haddana ka hadlaya arrinta yani arrimaha doorashooyinka marka anigu labada qodob aan rabo inaan dul istaago waxa weeyaan qodobka doorashooyinka qodobna waa qodobkan ah يعني مدحوينه خيامي لبا أرمود أيا لولا جيدا مدوحا لولا جيدا مامل قباليد يدي أو مدحوينه لدرسين هي أيو قاركوت صاحب لها أما أمانتو صاحب لها خير من نوحا ويا تندور الشضاء وحد الصوصات مركا لبا طبعا إن شاء الله تعالى واندول استاذي هرتا إن خير صاحب لنقضو مامل قباليد يدا oo muxuu ahaa dad badan oo yani Soomaaliyeed maanta yani fahmaan in dagaal uusan ka dhaxayn ra'iisul wasaaraha maamul goboleedyada laakiin dad badan hore u ogaayeen waxa sababay markii ugu horreysay waxa ninkan aaminsan yahay oo ah dadka in lala macaamilo oo ninka Soomaaliga ah ee maamul goboleed hebel ka taliya uu yahay nin Soomaaliya halka cagsigeeda uu aaminsan yahay madaxweyne Farmaajo kaas haduu uga soo horjooday isaga siib mid aniga aaminsan meesha gey horta difference-ga ugu horreeya kaas waa ninka Soomaaliga kala Soomaaliga waxa uu dhaamo kalmeesha jooga aan la macaamilo uu aaminsan yahay wali shirkana waa Soomaaliga walaalkan la fariisana maxaa taan dhaxdo kulli waxba uu tabanaya nin kasto wax diidani wuxuu doonayaa jira gabay bay ku jirtay wuxuu aaminsan marka qofka meesha jooga aan la heshiin waayahay waxaad ogtiin in weeraro lagu qaaday maamul goboleedyada dawladdan markii ay yani ra'iisul markii la doorto xogaa la joogay dagaal ayaa ka dhex qarxay dawladda iyo maamul goboleedyada waxaan rabaa inay idin xaqiijiyo horta dagaalada waxa soo rabshadaha dhacay
ninka rangareynaya xasan cali khayre ma ahayn haddaad ogtihiin iyo haddaydan ogeyn howshaas ninka watay maxamed cabdulaahi farmaajo ah ra'iisul wasaaruhu fakar ka duwan oo aaminsanaa oo ah warkan hadda meesha joogee aan ridayno iyo kan aan keenaynoon kharash garaynayno waa laba ninoo soomaaliya waxbana isuma keen dhaabana madaxweyne aan la heshiino ninka soomaaliga waa la heshiin karnaayo isaguna wuxuu lahay aniga madaxweynihii jamhuuriyadda ahay nin aan irabin halkan ma joogay dabcan waa booskiisi oo waxa weeyaan ugu dambeyn taladu waxay u dhamaanaysaa tan madaxweynaha ilaa moogta dalku kala dambeyn ku shaqeeya iyo sidii loo kala title weeyay hayo okay madaxweyne waa kula wada saasay bahashu ku socotay cali cabdullaahi cusable sidaasa muxuu looga tuuray yani meeshii looga tuuray ninka la yiraahdo shariif xasan sheekh aadana weerar lagu qaaday waad ogeedeen isagana waa la tuuray waxa lagu sii diray in meesha xabadaya balaaya ka dhacdo xoog lagu soo xiro waxa soo dhan khayre waxa weeye aad iyo aad isagoo uga xun ayay dhacayaan sababtoo ah nin maamul goboleedyada la shaqayn jiray oo garanaya oo siyaasadda coach fiican ka ahaa weeyaan inuu wax kala furfuri karo oo ninka Soomaaliga ah markuu 100 shay soo bandhigo ogol in muxuu ah wax ka dhimo yiraahdo inta ka dhig ma qad rabtaa intaasi 1 2 3 4 5 okay 1 2 3 4 5 daarada 1 2 waa ku ogolaa 3 4 iga daa waa murmay okay 3 ku darso 4 5 iga dhaaf marka nin saas ogol weeyaan waxayna tahay marka xaqiiqda laga hadlo danta Soomaaliya maanta saas ku jirto dalka Soomaaliya waxa weeyaan maamul goboleedyo u kala go'an yahay beelaa loo kala fadhiyaa عدي مانت محو هاي أيضا ضاعتك عد نظام دولة iyo ababa aad la gashaa qabil yani ku soo duulay oo dawladda awooddoodii isticmaaliyay ku aragtaa sida halka sidaan ay laakiin maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda uu meesha joogo oo isagu muxuu ahay dalka ugu sareeyo khayr wax badan oo khilaafa ma sameyn karin laakiin si raganimo ah oo yani ragarooni wax ah oo isticmaalay baashu marka siday u socotay ala kulli xal galmudug ayadana la galay waa lagu galgashay khayr hal arin waxa weey waa la dhigi karaa isaga ka dambeeyay galmudug wadaadada ahlu sunna oo joogay in laga saaro meesha xasan cali khayr taas hadan ila farmaajo ku shaqalahay waa dulmiye farmaajo waxayna ahayd iyadana waxba ka horeeyay waxa ka horeysay 45 casho in xasan cali khayr uu fadhiyo meesha la galmudug ee uu bariyo culimada 3 jeer la kulmo intaas heshiis la galay markuu ogaaday inayn waxba ka soo socon galmudugna ay labadan wadaad u baaba'ayso ayuu marka option kan qaatay horaan idin kugu soo sheego waxaan idin iri waa nin aaminsan marka hore ninka Soomaaliga in la fadhiisto la sheekaysto la saa'iro waxa uu doonayo lagala gorgortamo laakiin hadii maara loo waayo awoodda dawladnimo marka ugu dambayso wax la isticmaalay ee noqoto halka madaxweynuhu aaminsan yahay awoodda dawladnimo wax kasta in iyada laga bilaabo qof allaale qofka korima dawladda ay taangiga marsiiso idan tabarteedii la hayay dadku waa qabiilo waa hubaysan yihiin nin walba gurigiisa oo fadhiya inaad ku abay kartaa ma jiro waaya axmed maxamed islaam iyo jubbaland ayay bahashu soo gaartay horta madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo meeshan markuu jubbaland raba inuu tacriifiyo sababta axmed madoobe saaxiib la yahay maanta khayr loogu eedeynayo iyo sababta uu waxaas u sameeyay ma inkiraayo oo axmed madoobe khayr lama dirirsan laakiin sababta u dhacdan rabaa inaad ka dhaadhiciyo iyo maanta sababta loo xaqanayo leeyahay madaxweynuhu qiyaamay Soomaaliya waxa weeyaan waxa ka jirtay laba magaalo inta burbur ku jiray labada magaalo waxa la kala yiraahdaa Muqdisho iyo Kismaayo Muqdisho waxay ahayd magaalo dadka hawiyaha ah ay isku arkaan oo muxuu ahaa ay ku dagaalamaan ay ku herdamaan magaalada Kismaayo sidaas oo kale dadka daaroodka ayaa isku arki jiray oo ku dagaalami jiray Muqdisho Kismaayo waxay uga duwaneed magaalo lagu kala adkaan waayay ahayd qolo walba meel ay xiratay halkaas ayayna maamuleysay laakiin Kismaayo saas ma noqono maadaama ay magaalo yarto Muqdisho kala aysan ahayn waxa weeye mar walba awooda gacanta ku dhigaysa 98 ayaa igu horreeyay anigu tagay magaalada Kismaayo wiil walaalkay la socday oo inuu halka hadda iga daawanay dhici karto leeyahay bahad Umar Ali oo hooyada dhashay magaalada Kismaayo waagaas waxa maamulayay ninka la yiraahdo Morgan General Maxamed Saciid Xirsi Morgan ayaa maamulayay magaaladu way deganeyd ciidan boolis oo bidood watay lahayd waxaan tagay 2004 tagay barrihi la joogay sidii waagi hore u taalay uma oolin magaalada markaan tagayna 98 magaalo maamul ka jiro oo boolis budad wata 300 ciidan oo boolis ay leedo budad wata ninka la yiraahdo muxuu ahaa waa nool yahay waxa laga yaabaa inuu fiidiyoga arko ninka la yiraahdo Morgan waxa weeye maalmaha aan joogna waxaan loo sheegay meel oo basketballka lagu dheeyay inuu ku dheeyay isagoo dabagal qabo
saas yani nidaam dowladeeda ka jira laakiin 2004 maraan tagay magaaladiyo gacan kala gashay oo barhiira leeyahay haysto oo mooryaanta qoryaha wadatay ammaanku u wada jaran yahay ee foolxumada badan iyo waxa qaab darrada meesha ka jirta aad yartaan 2004 mar kale tii inaan ku sii fogaado marba magaalo noocaas ahayd oo very sensitive ah kadib haddana maxaakiima baraka qabsatay maxaakiim markay ka qabsatay 2013 iyo 12 dhamaadkeeda aan dhaho waxa soo galay ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Islaam أهم حاجة لما سامر كوسا قال واحد أكتين ماشي إن معمل أو كسمية معمل كنا الدولة الفدرالية كاي مركز جيت لما كنت حتى ممكن يسميه إني دي وحاسس الشيخ محمد يرين نو واحد ودمر نوريا وبرلمان كي دي برلمان كي مركو دي حاسس الشيخ محمود وحاو يمدي نمن اللي يراهدو كبل الحضارات نمن اللي يراهدو يمدي واحد دهين مقالة كسمايو waxa isku haysta waa aan kaga dheelay raali ahada meesha markii Axmedoobe yiri madaxweynaan ahay barrihiiraala asna yiri madaxweynaan ahay iftin xasan baastanin la yiraahdo oo isaguna inuu cawramalayaha aan jeclahay isna madaxweynaan oo dhowr madaxweynaan meeshii muxuu ahaa ka samaysantay markay ka samaysantay Axmed Madoobe maamulkiisa yani focus ku saaraa dawladdu waxay taageertay barrihiiraalo inuu markaas xildhibaan iyo wasiir wuxuu ka ahaa dawladda ma aqaan kullu si raad ugu lahaa dawladdu xogaa waxay u janjeertay dhanka barrihiiraale nimanka kale daarood ayaa u yimiday madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay dhaheen Kismaayo horta adigu maxaa information aad ka haysataa Kismaayo magaalo Soomaaliyeed oo halkaas ku taalo oo jubbada hoose gobolka la yiraahdo caasimada kale waxaas ma jiraan leeyahay meeshan daarooda isku haysta daarood ayaa isku haysta oo muxuu ahaa halkan weligood ku dagaalami jiray ninkan barrihiiraala ee aad muxuu ay taageerayso waxa weeye dadka badan oo magaaladan ku galay annagu ma doonayno inaad qalad naga gasho walaal waxaan dulmanin magaaladan waxa weeye faraha kala baxay Axmedoobe annaga wadana kala daarood iyo sida daarood markay tagtay miisaan la saaro waxa weeye dawaad garan kartaa adigu madaxweynaha tahay siyaasaddaadana waxa la rabaa adigu inaad danaysataa ugu yaraan muxuu ahay aad ka fikiraysaa marka ugu dambaysa baarlamaan meesha jooga mooshinna jira balaayo dhamaa jirta xasan sheekh waxa la dhageyso kabalax daarood iyo sida daarood miisaan isla saaray adigu kii kula culus qaado waa ka baxiyay hambareeyo ka duugtay wuxuu raali ahaada baarlamaankan inta rabsho la iga kicin lahaa bahashan aniga dabkan aniga biyo ku shubaya waa duulay Kismaayo tagay Axmed Maxamed Islaam uu yiri madaxweynaha Axmedna waxa weeye hadda meeshii waa ku dagaalamay oo markaas hadda Axmed meesha gacanta ku haya barriiraal waa la diriyo waana ka adkaay marxaan ku xiraahdin Kenyaati uu adeegsan kan laakiin cagtuu mariyay sida xaqiiqda saas waa cagtuu mariyay dhulku dhigay waa kala eriyay meeshana qabsaday meeshii isagoo haysta madaxweyne waa u tagay waa la aqoonsaday maamul Jubbaland la yiraahdo meeshii ayadoo ay sidaas tahaa nimanka sida daarood waxa weeye sagaaray dhigteen awla ugu dhacday maxaa Abdullaah Farmaajo soo istaagay maxamed Abdullaah markuu yimid waxa weeye barriiraal waa tii 100 nin meesha looga dilay 120 waxay ma aqaan dagaalkaas ay uga dhimatay oo ilaahay Kenyaati naga laayay ciil badan ay qabeen durbadii maxamed Abdullaah Farmaajo talkiisa oo ibada xalay dhageyso Kismaayo waxaan rabnaa Axmedoobe inaad ka saartid Axmedoobe waa nin madaxweynaha oo mandate haysto la doortay si kasta ha ku yimaado Farmaajo sida xaqiiqda ah waxa weeye arrintaas soo ma dhawin marka hore aad iyo aad ayuu uga cagajiiday wuxuu yiri waa very sensitive mana geli karo Kismaayo sababtoo ah waxa weeye anigoo nin mareexaan ah oo maanta Kismaayo saameyn weyn mareexaan ku leeyahay oo dagaal ku galay hadan Axmedoobe xaqiisa aad wuxuu meesha fashil baa iga soo gaaray waana cusba xogaa waa gambaday ma yeeline intaas kuma kan halkaas ka wareegeen ninka la Fahad Yaasiin ay u tageen balse fiican dhageysta waxa khayr lagu haystaan rabaa inaad ka dabagii Fahad Yaasiin in la yiraahdo u tageen oo 75% la yiraahdo waa mareexaan muxuu yahay mareexaan la dhashay mareexaan oo qaba mareexaan dhalay nin mareexaan soo koriyay ninkaas ay u tageen Fahad iyo madaxweynahana waad ka warqabtaan waxa weeye nin baa laga sheegay mandhow waxa la yiri wiilow dhalay oo si sharci darro ku dhalo wuu ogaa wiilkii xoogaabay oo ceel yani shubaya ayay ceelkiisu ugu yimaadeen wiilkii xoogaa garabka geliyo odaga markaas uu mandhow igama dhagayarid ceelkaygu ridi marka hadda igama dhagayaridine waad ogtiin Fahad iyo Farmaajo waxa ay isu yihiin على كل حال فهد حقي سي مرين waxay dhahan hawshan ilaa inaad qabato aniga maxaa Farmaajo nagu soo taagan yahay shaqadan rabaa Kismaayo in laga qabto markaasna Axmedoobe waqti fiican u dhiman
iyagu waxayba rabeen jabhad iyo balaayo waxantay abaabulaan inay barqa hore weerar axmed islaam meesha ay ka saaraan calaa kul xaal hawshaas ma socon baashi waxa la warwareejiyaba waxaa la yidhaha axmed waqtigiisu markuu dhammaado allahna gaarsiiyo markaasaa waqti marmarsiya loo haystaa markaasaa la gelaya ugu dambayna maxamed farmaajo waxa dhamusaasaa laysla gartay waa xaqiiq xasan cali khayre horaan idinkugu sheegay waxaan idin yidhi bahashan coach ayuu ka ahaa si fiican ula socday berigaas xasan shiikh iyo waxaan dhan waa ka warqabiyaa isagu iyo meeshaanu sida ay tahay xasan nin fahansan in meeshaan beelo walaala ah isku hayaan oy ku hardamayaan ayuu ahaaye farmaajo uu kala tali wuxuu yidhi madaxweyne iyadoo amarkaaga in la qaato ay tahay haddana muxuu ahaa maanta sharaf kuuma ahan in aad weerar ku qaaddo axmed madoobe iyadoo muxuu ahaa tolkaagu ay meeshaas ku yihiin yacni awoodda labaad ugu yaran ay ka yihiin oo dhibaato badan ka dhacday oo meel muxuu ahaa gacan ku haynteeda laysku haysto muddo lagu soo diriray 30 sano lasoo dhaafa ay tahay nin mareexaana adigoo inaad kismaayo weerar ku qaaddo madaxweyne sharaf darray ku tahay nagadaa mayu ilaa waxa weeye ninkaan meeshan ka saaray xasan cali khayre wuxuu qaatay nin yacni arrin adigu muxuu ahay labada qofoo is haysata aadan ka mid ahayn ha gelin dakanana ninna ha ka gelin dowladdu ka mid ahay dabcan oo waa ra'iisul wasaarihii dalka laakiin taas ayaa keentay maadaama uu isku dayay in uu madaxweynaha ka waaniyo iyo ninkan ordayay Fahad Yaasiin la leeyahay oo yiraahdo baashan joojiyay diideen waxa weeye wuxuu qaatay go'aan ah dakano adigu cidna ha ka gelin axmedow marka anagu ka hadlayno aan lahayn waa qaran dubis iyo waa kan iyo waa la gelaya iyo madaxweynaha qarankan xushmeynayna laakiin maalin kasta aniga waa layso waxaa leeyahay war meesha mareexaan iyo waxa isku haysta kabladax daarood meel la yiraahday hawshan ka bax oo ninkanu shaati muxuu ahaa dawladda inta noo soo gasho tulkii raano meeshan muxuu ahaa nugu afgambiye walaa naga daa waxaan lahayn qaranan difaacayna laakiin bahasha xaqiiqda ayay ku soo ururtay taas ayaana keentay xasan cali khayre in uusan colaadin Jubbaland sababtoo ah Jubbaland hala wato shaati hala wato muxuu ahaa qaran oo waxyaabo kale hala sheego oo hala yiraahdo muxuu ahaa Kenyaati Axmed Mahiiga Axmed Doofaar Axmed Hebelow wixii la rabo hala sheego hala xoqdo shaarka qaranka Soomaaliyeed laakiin ujeedadu waxay ahayd ciidamadan gedel lagu daldalo tirada badan in muxuu ahaa halkaas inta loo soo weeciyo laba loo qaybiyo marka ay marayaan dhamaadka xuduudka maaragtay Jubbaland iyo Jubbada Dhexe iyo muxuu ahaa meesha la yiraahdo ii sheeg iyo gada markay marayaan qaybna ay kismaayo qaybna ay dhanka bu'aalay Jubbada Dhexe halkaas ay soo aadaal rabay odagaas meesha jag laga yiraahdo halkan la qabto ugu yaraana la geeyo nin nacamleeyo ah ogaadeen ah oo maqaar saar ah meeshan in la geeyo qorsho ah xasan cali khayre marka waa nin hawiya kursiga wuxuu ku fadhiyaa 4.5 sidoo kale waxaan ka booday markii la arka kismaayo in lagu socdo mar labaad kablalax wuxuu yimid ninka la yiraahdo xasan cali khayre waxa la yiri ninkan waa u jeednaa warna yeeli maayo kismaayo dhaf mid la waa khayrisay waa ogtiin war joojiya war ma aqbalayno war naga daaya hababa waa joojidida farmaajo ninkaanay u yimaadeen waxa la walaa eetan naga gelin hana dulmin qodhay xirda xasan cali khayre nin hawiyaha tahay anaga ya hawiya 91 ya dagaalkeena isugu dambeysay hawiya daarood isdila waxa weeye Soomaalida baa leesu keenaya shaati dawladeeda ninkan raba inuu nagu baabi'iye walaalow ha noo raacin aqbaliya ajiib amar anigu aan leeyahay kismaayo lagu weerarma taasoo qaatay xaq buuna u lahaa xaq buu u lahaa waa nin hawiya fidna daarood ka dhexdhexaysa waxba kama gelin halkaasuu ka istaagay maanta marka mareexaan in inta baraha bulshada soo galaan madaxweynaha qiyaana tuuga waxay Kenya wala socday dhahan Kenya sheegtay cidii la rabaa la soconaya xaq maxasan cali khayre umale dad meel degan oo muxuu ahay xiniyahooda ku degan oo idinku meesha waa haysan jirteen mareexaan daarood kale isoo ka hadli karnaa barruuraal meesha ku haysto mooday balaayo wata shalad haysateen kanaalda nidaam iyo system uu ku yimid iyo doorasho iyo waxba sameeyay adinkoon barxin ayaad meeshan xoog ku haysateen inuu farageliyo oo muxuu ahaa dad walaalo ah oo iyagu iska xigo oo wada dhasho arrimo qabiil iyo awood
يعني كود دقالميا حسن على غير إنه دحقله حق وماله sidoo kale Puntland saddex maamul goboleed oo kale igu kaaday Puntland marka doorashadu ka dhacays ninka la dhigi jiray halka khaliif koofida wata farmaajo lacagta soo siinay Fahad Yaasin ay inta 10 milyan soo siiyeen lahaayeen meesha tag xasan cali khayre iyadana commentary ka dhigtay wuxuu yiri madaxweyne hadda moodo in aniga kabla maxaa aan xasan cali khayre uga raadinaa aan cod uga raadinaa xasan cali khayre la taxta inuu sharxay anuu ma maqal uma campaign garanay laakiin xaqan idin sheegaya xasan cali khayre wuxuu yiri niyahow madaxweynow Puntland waa maamul gaamuray oo 20 jir ah 20 sano jiraan from Syria ka soo bilaabeen Soomaaliya maamul iyo waxba ka jirina odayaashoodu intay isu tageen 1998 ay maamul samaysteen 5 sano ayuu madaxweynaha Puntland xilka hayaa mooshinna lagama keeno meel stability ka jirta weeyaan aan faraha ka qaadno yaanan faragelin xoolayaanan ku bixin ninki soo baxa waa Soomaaliya aan la heshiino no nacamleeye inaan geeyo maxaa farmaajo waa inaan nacamleeye halkaas fadhiisiyaa maxamed Saleymaan ma jartaan ko dawaa niman aad iyo aad u aqli badan waa fikireen waxa la yiraahdaa ma lacaga leeyni soo siiyaa soo la kaalaya wax allaalay wixii la dhiibay waxa way Fahad Yaasin farmaajo soo dhiibeen dalq ayaa garowe lagu siiyay ninkay rabeen waa doortaa kaasa Saciid Abdullaah Dare maanta dhex taagay taas waxay keentay iyaduna inaan colaado kala dhaxeen xasan cali khayre because way og yihiin waa la iska warqaba because aniga dan ra'iisul wasaare dalka aan tala dhibto warniyo sidaana igula qurxay baash igula qurxanta muxuu ahaa madaxweynaha uga sarreeya uu diido hadda ninkan anigu dakana ka gali maayo inuu weerar kugu mayaan leeyahay laakiin ninkaas odaga ah ayaa hawshan kulli maaragtay watay meesha ku dambaysan arkaya يعني waxyaabo iyagu ay sheegayaan kamid tahay hoosaw kala socday kana uu sheegi jiray kana uu lahay aniga sidaydaba waxa weeye marka layga sareeyo oo madaxweyne dalku madaxweyne uu leeyahay anigu commentiyan le aragtidan le war sidaanan anigu qabaa in la yeelo ma diiday hal hadaan u arag waxa aad wado waxa iga go'an in muxuu ahay markaasi aan ka aamusad hawsha adigu aad wadid laakiin cid aad burburinayso aan anigu dakana ka gelin حسن على خير تاس يا كنتي لبدا مامول مدحوينه محمد عبد الله فرماجو آد يعني اي u kala fogaadeen in isagu aysan waa saaxiibadeen mali laakiin in aysan colaad u haynin tan ayaa keentay sababtoo ugu yaraan shartiisa ayay ka nabad galeen labada maamul goboleedna laba maamul goboleed oo daarad way madaxweyne farmaajo dawladda diraa haduu baabaayo wax ka sameeyo ninkani waxa weeye maadaama dadku ay beelayihiin inuusan dhibaateen ayuu go'aansaday faraha ayuuna ka qaaday taas ayaana keentay maanta inaan xasaasiyad maamul goboleed ka qabaa uusan jirin okay dhammaan talaabooyinkii la qaaday marka dhammaan wixii talaabo la qaado burburiska ahaa maalintii la bilaabayo fikradda xasan cali khayre qabay maanta taagantaa oo ahayd war Soomaaliga meesha jooga aan la heshiino oo muxuu ahaa mid kale jabkeena ka keenay anagu midaan dhalna ma jiree yaanan qarashna ku bixin dadkana kula ciloobin maanta waxa weeye qorqoro muxuu ahaa dawladda qarash gareysay muxuu ahaa lafta garan dawladda qarash gareysay waare muxuu ahaa Saciid Dani iyo Axmed Madoobe waxa weeye dawladda federaalka ahayd oo kala duwan intay isu yimaadeen oo shireeray waxay dhaheen kaalaya shirka ka soo qayb gala farta loogu yeeray ma midad dhashaa jira soo baashi sidii loo wada biyo meel godan isugu yimaadeen jug Sooma dhigin barta xasan cali khayre oo shal ku talinayo laha warkan Soomaaliga ah meesha jooga isaga aan la heshiino oo yaana wax baabeen waya waxaan soo gudbaynaa arrimaha doorashada tan maamul goboleedka farmaajo qiyaamay taasan kale farmaajo ma qiyaamin farmaajo wuu ogaa wuuna ka warqaba xasan cali khayre inuu san ogolay hawsha wado uu ka warqaba wuu ogaa markaasaad maanta waxaad keenteen imaaraad oo la socday khayaan wadana aha iyo kan warninkan dukaan ku leeyahay magadayni 4.5 meeshan ku joogay waxa weeye aragtiisa siyaasadeedna waxay ahayd in ababa iyo qajajac Soomaali ay horugu soo baaba'day aan wax dambo caanaana looga keeni karin sidaas uu qabay ilaa haddana waa qabiyaa dadkan la heshiino aan la hadalno kan muxuu ahay meesha joogaan la dhasho taagan yahay mid kale yaana waxba keenin isaga aan heshiis la galno dhahno walaal gacli maxaad rabtaa nin kasto wax diidani wuxuu doonayaa jiray maxaad rabtaa dadkan la gorgortano iyaga aan la heshiino meesha dhaaf weyno hadii ay nagu qasabto danto oo ninka meesha joogaa yani isku soo keentaagu tala diido maamulki yani waa la goosanaya tabaka la diro laakiin intii war lagu tay karo waraan ku dayno
هذا سيد محمد عبد الله حسن ماي ويل وارو هاي جعله walaalka yani wax kasta uu ku daye nin ragii walaalkii wuxuu ku dhaaman lawaa buu taagnaa walaalow waxba nin ragii kuma dhaamo taasa ugu wanaagsan waayahay xagga doorashada maalmaha kan waxaa la ilahaa qabyaaladaad samaysay kanaad samaysay qabiilow hebelkow horta anigu waxaan ahay nin fikradda uu qabo marna aan la gamban mar kastana waxaa weeye wixii danta dalka iyo dadku inay ku jirta aan aaminsan ka hadlaa haddii farmaajo qaldayahan ka hadlaa haddii khayr qaldayahan ka hadlaa sababtoo halka aan wax ka eegayo halka sare weeyaan labadan shakhsi macnaba iimale waxna iguma hayso ninka saxan waa laga yaabaa inay dhahay wala saxan laakiin waxaan rabaa inaan tala yar dhisiyo oo idin sheego sababta aniga hadda maantay ee xogaa yani aan idinku muuqdo in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xogaa aan la kala jiro sababta idinku muuqataan rabaa inaan idin sheego hadda kor berigi madaxweynaha la doortay ayaa rag buuq kiciyeen oo nimankii walaalaheena ahay dhihi jiray khiraabka waa kuwa qayliyey oo yiri yaa tolehey war soo baxooy war la dirirooy warkan sameeyo buuqaas berigu jiraan habeen life soo galay waxaan shacabka muqdisho anigoo ku hal qabsanayaan waxaan idhi walaalayaalow waxaan rabaa dadka dhalinyarada ah ee wixii la soo maray aan wax badan oo warag ka hayn inaan xaqiiqda u sheego waxaan idhi walaalayaalow aniga bista soo martaan rabaa inaad kaga sheekay anigoo yar oo caruur ah hooyadayna ay 7 maalmood dhalan tahay ayaa layla qaxay oo waliba maalin duhurkii taa 7 saac oo maalmeed baa layla cararay شوف عيدك هويدي أمور يتضو مع البرد وقحنا ولا الأرض رفعت كان مرنا إلا أوجا وحي يقصوا حكتي حاس كيجا أو يعني أورس قال بلاد على إن لقى حارو الأرض حبين متو وحي يقصوا حكتي مركان صول لعبناي حدنا قبل الشيء حدنا شنية تنبر إذا الله إن حدنا لا عرره وحن أقول دبا مريي ما دام أنا جو عرور يرى الله يرى عرره xaaskaygina iyadoo uur leeya iyadoo dhashayba aan anigu la orday war gabadhayda ma rabo iyadoo umula inay qaxdo wiilkayguna ma rabo xaaskiisoo umula inuu la cararo marka waxaan idhi dano idinkuma jirto waxaan la buufinayo iyo xabad baa dhacaysee waxaan idhi waxba ha dhegaysana nimankan qaylinaya alxamdulilah rabbilcaalamiin waa loo guulaystay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xamar aydoon dagaal ka dhicin 3 sano iyo bar ayuu soo gaaray laakiin maanta isaga ayaa ka shaqeynaya mar kale xamar in xabadu ka dhacdo shalay haddaad ku raaxaysanaysa marka haddaad shalay ku raaxaysanaysay markaan lahaa yaan la yeerin hawiyow waxba kama jiraan bargiir abgaalna dan uma haysiin kuwa qaylaahu fariista markaan shalay lahaa haddaad ii sacbinaysid ii sheergaraynaysid geesanile waddana ii taqiinay maantana barti un baan taaganaya adiga ayaa isbedelay ولا اسكو أبال شيكتا هو أنك كان حسن على غير كلام مقعابة كناوية اللي هذا هدي هرت أبال السكولية هي لابد أن نوضع أبال السكوليين لكن إن محمد عبد الله فرماجو أو قف هوية حلقة مقعابة لها إنه حسن على غير قاطي إن رئيس الوزراء وجود اللوبة أتكون فكرتان صح معه هل أرنو كلا دي شيء جملة معترضة اللي هذا برنامج كحوجا كبد معه واجي مدحوينها للدورتي أيام نين صاحبك يبرجع صاعد سلاس مركز دورشة دمعت مركز سوري وريا عبر ساقي ورنا بدي وربراك ما تأخذ ضمي كسر محادة وركيب بسكين كهاي دورتنا طاقة حتى على الأريا يورد وقتها مركز سعر محل الأريا محل جرها أصوك يشاف اللي حبل ما كنت جوجا ماشي اللي جرها عندي وحان إلي وحاس بجرانيو وحول حتى إمي السنة يوجوجا سلامة مركز سعر 4 سنة markaas uu lix bilood baa ilaahay ka ba ma wallahi afar joogaan carruur ka sal raacday wuxuu yiri nin waad khaldan tahay bal waa arki doon wixii ku xiraa doonta cidda uu magacaabo hayaan inuu kala tagla inuu daawanaya suurtagal ah in magaciisa sheego barnam waayay ilaahay markii uu fikiray waxa uu soo baxday khayre inuu magacaabo wuxuu ku doortay isaga yaqaan khayre ayuu markaasi soo magacaabay khayre iyo tolkiisna geed dheer iyo mid gaaban waxay u fuuleen حسن نقول لنا محمد عبد الله فرماجو أفرتيس سنة شرفة إنه كنا بيست أيضا ما كنت تلقيناها يا أبقى ليها برجدير إعلان رياشها أي ديدين إليهن ورنين كان تيانا ماله تلانا ماله تقعدنا ماله النافية عندهني مانديت أيوه هايستاي حشمية مرء عقل عري
mar walaalayaal dhaho bari mar handada u bootay waxaa tirahdaa isu keena xabad haddaad maxaa wax nooga qaadaysan aan isu imaana dheh si kastaba arrintu ha ahaatee waxaa weeye waxaan soo gaarsiinay 3 sano iyo bar waxaana aaminsana oo aanan muxuu ahay ilaahay uga fogaanay hadduusan xasan cali khayre magacaabi lahayn 1 sano iyo 6 bilood inta u dhaxaysa 6 bilood ilaa iyo 1 sano ka badan maxamed cabdullaahi farmaajo xamar ma joogin laakiin rag maskaxdiis iyo xoolihiis iyo siyaasaddiis iyo maalkiis iyo dhiiggiisa halkaas ku joogo halkaas rag ku wada halkaas ayuu rag u saar waayahay nimankaas walaalaheena marka waxaa jirta culummo waxaa la yidhaha maamaha waxaa jirta Soomaalidu la yidhaha culummo xirig meyraa xira xarig meyra ma taqaanaa meyrtu waxaa weeye xarig xoog badan ma ah dadka qaar ayaan garanayna falagta laga suubiya baasha falagta la falkiyo cawska laga sameeyaa meyr la yiraahdo culummo xarig meyraa xira marka meyrtana waxaa weeye xarigeedu ma awood badna maxaa loo leeyahay culummo xarig meyraa xira waxaa weeye daliilka qofka wadaadka ah culummada ahludiinka marka aad indhaha faraha ka geliso murantaaro ama isugu ku qayliyo haddii aad tiraahdo nin aayad habal sidaas ay leedahay ama xadiis habal sidaas uu leeyahay uu hakanaya aayadda ama xadiiska celinaysa laga wada yani culummo xarig meyraa xira kaasa xira nimankan walaalaheena marka annaga awoodeenna iyo kartideenna iyo siyaasadeenna iyo walaalaha iyaga lanahay ka sokow qodob kaloo qabanayaa jiray oo ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa la doortay wuxuuna ku yimid doorasho xoog kuma dictatorship ma ahan dalkan xoog kuma qabsan waa la doortay baarlamaanka doortay 4 sano dalka inuu xukumo xaq u leeyahay qof idinka yeelayo ma jirto inaad 4 sano ka hor ridaan 4 sano markay u dhamaato haddii uu marka ay waxay lahayn ma garan karo dadka akhriya moogta waxay lahayn waa Maxamed Siyaad Barre waa Maxamed Siyaad Barre warninku nin fiican ma war mursada waa khaldantiin iyagoo la dhahnay been baa jeegaysa dimuqraadiyadu ku yimid meel laga miday karo Maxamed Siyaad Barre iyo ninkii leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ahayn inay isku qabiil yihiin laba reer diiniya oo reer Mariixaan yihiin yani meel kale laga miday karo ma jirto saasan taagnay waxaan marka lahayn ku celinayno yani qodobka iyaga celinaya oo ahaa war Shariifa shalay muxuu ahaa madaxweyne noqday 4 sano u dhameystay markaasuu wuxuu raba ku darsaday waxaa yimid ninka leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud 4tiisii u dhameysto muxuu ahaa ilaa 4 bilood iyo 28 biriyo ku darsaday war niman yahow sidee ku dhici kartaa Soomaali sidee la isugu keenaa haddaad dhahdaan ninkan annaga ahayno meeshan hadii maad waa baxa say ku suurtagale warinku tayba uu leeyahay taasa ugu awood badneed waxa lagu celinayay marka war garawa shacbiyadna waa ku waaya 4 sano marka waxay qaateen go'aana waaya 4 noo dhamaato iyagoo saluugsan oo qaarkood uu kabaha ku duugo Cabdirashakuur iyo wiilashiisa maxaa Cabdullaahi Farmaajo laga diido bixinay wariyaa laga diido bixinay qodhay xirda oo dadka dilay ku ababeenay qolob san ka gelinayo reer mashriq karaay indhaxteeska isagoo wada waxaan lahayn war u kaaja walaalayaal waaya wixii oo dhan ka soo gudub mandate-ki madaxweynaha waa soo ururay 3 sano iyo baru qaatay 3 yani 6 biloodana u harsan maanta ayuu wuxuu bilaabay inuu barmud gareeyo marka 2 sano oo extension han u baahna extension la siiyo oo muxuu ahay la iigu daro 2 sano ayaan u baahanahay dalkana doorasho kama dhici karto doorashada ka dhacaysana qof iyo coday noqonaysa waxaan ognahay Soomaaliya inaan wax doorasho la yiraahdo qof iyo coday aysan ka dhici karno Maxamed Farmaajana qaban karin ninka ku xiga ee madaxweynaha ah ee la dooran doonana xataa uusan qaban karin kan ku sii xigana shaki ku jiro laakiin sababta uu ugu ordaayo muxuu ahaa doorasho qof iyo coday ay tahay in meeshaas ay ka soo baxdo in waqtigii lagu qaban lahaa yani loo baahan yahay halkaas uu ku darsi ka helo inuu taas rabo ayaan anagu sii ognahay halka hadda waan idin sheego waxaa taalan yani waxaa jooga rag qodob lagu xiray oo la yiri war doorashadu waa 4 sano 4 sano ha dhamaato soo sharaxa xiniyadaad isku aysan qoryahan iyo waxa la ordaysan yahay reer hebelahay iyo bunkan inta meel iska dhigtiin 4 sano markay dhamaato soo sharaxa in Farmaajo doomo sharax yaara la tartama cid kale ma sharaxtaan la tartama laakiin idinka yeelmayna xabad ka ridaan oo dhahaan xoog dagaal dhacay ninkan saarayna ragii qodobkaasan ku xirnaa meel ay noo fadhiyaan waa nasugaayaan waxay leeyihiin hadda ilmaadareal waqtigu waa dhamaaday shalay waxaan lahaydeen ninku time oo haystay time waa dhamaystay annaguna shalay waxaan idin sheegay inuu ninka yahay Maxamed Siyaad Barre labaad oo doonaya inuu afgambiye naga soo garbaxan annagayna haysataa Maxamed Farmaajo marka ra'iisul wasaare Khayre
wuxuu yiri madaxweyne ku darsi halkan kama shaqeynayo xabadda meeshan ka dhacaysa waa la isdilayaa waa dhowr jeer ku celiyay uu yiri muxuu ahaa amni darri keenaysa waxay keenaysaa muxuu ahay khalkhal dastuuri keenaysa khalkhal amniye keenaysa khalkhal dhaqaale keenaysa wax walba keenaysa meeshan markii waxba lagu darsanayo madaxweynaha waxay uga dhigan tahay 2 sano inuu ku darsado si 2 sano uu ugu darsado u helana nimankan wuxuu rabaa balaq inuu tuuro uu yiraahdo wadan suuqa ku jirta taas ilaahay hadda afcad laga maayo laakiin yani waxa uu jecel yahay ama dadka isaga u dhow laga soo xigta weeyaan si 2 sano uu helana uu yiraahdo khayru afar faataxan ku maray meel dhow iska tag nimankan uu rabaa inuu xoogaa maarto uu tuuro ra'iisul wasaare siiyo sidaasna uu ku darsi ku helo laakiin arrin soconaysa marna ma aha oo xataa haddii uu dadka qayb kamida la heshiiyo oo uu yiraahdo ra'iisul wasaare idin siinaya mushkiladda waxa xalli kara ma aha maamul goboleedyadii oo dhan ay ka soo horjeedo halkaas taag khayrna marka wuxuu yiri bixitaankayga aniga iyo adiga joogitaankaaga iyo waxaas oo waxa ka muhiimsan war Soomaaliya maxaa dan u ah aniga taymkayga waa gabagabo adigana kaaga waa gabagabo Soomaaliya dan maxaa u ah Soomaaliya dan waxa aan doorasho qaban ama isharrax ama anigu aan sharrax ama cid kale ha sharraxdo doorasho inaan qabanno kalsooni aan la nimaado dalkaana ka badbaadino in burbur iyo dagaal iyo xabado ka dhacdo ninkaana dad baa waaraya oo waxay leeyihiin waxba ma jiraan hawiya ma noola saasa loo sheegay madaxweynaha hawiya ma noola xiliyaha saas looga saar wax jira ma aha hadda nimanka saas oo hadlay 100 wiil xamar way joogto oo dhaa xirta 100 wiil oo hubaysan maanta xamar way joogto nimanka saas oo hadlay madaxweynaha u sheegay hawiya ma raba wax jira ma aha wixii anagu aan xalinayn abargiiran kaba ku aasnaa maanta xamar looga sheekay qodhaa xirda dadka gardarada lagu leeyahay Cabdiraxmaan Shakuure gardarada lagu leeyahay maxaa farmaajo abarka bixiyay iyo Faad Yaasin ee lagu dhalmaday kaba lagu aas anagu antan ma ku tagna dhawrdiyada seenada real rally ahaada bay waxay leeyihiin dahawiya ma nool habargidir baanba duugne maxay tahay ninka waxa loo sheegay waxa leeyahay Maxamed Farmaajo yaan been lagu sheegay oo propaganda iyo waxaan jiriyaan laga dhaadhicin waxa weeye hawiye waa nool yahay sidiisii uu joogaa dhowr iyo 10,000 oo wiil oo hubaysan hawiye xamar joogta saacadii rabaan inay fidna ridi karaan hawshan rag baa yani waqti badan iyo juhdi geliyay oo dadkani ku jiifaan balana la leh oo 4 sano markay dhamaato in maxay meeshaas nidaamka dadka dib loogu soo celiyo rag kula ballama jooga taasi dadku haystaan maahine qodbooyinkaagan iyo waxaan meelaha aad ka daldalaysa iyo xoogaga wadooyinka sacbinaya iyo waxaas meesha wax ka shaqeynaya ma aha xamar waa muqdisho waa xamar taqaanin waa la joogaa annaguna dooni mayno haddii aan mawduuca dib ugu soo laabto aniga ka Cabdirasaaq ahaan halkaas waxaan uga jeedaa in ay ka soo socoto shalay qaxi aan ka digay ee aan lahaa iyadoo madaxweynuhu uu joogo dhowr iyo 10 maalmood aan lahaa dhageysta aniga anoo ilmaa qaxay xaaskayga iyo muxuu ahay iyadoo uur leh iyadoo muxuu ahaa umulaba qaxday war gabadhayda ama wiilkayga yaa inay qaxaan oo caruurtooda la ordaan ma doonayo shaladii aan yani shalad lahaa aan maantana leeyahayo dadkayga ma raba inay qaxaan maxamed cabdullaahi farmaajo xamar la isku dhufto fursad u helo sabab ku bixin waxa weeye tartiib airport diyaad ka raacay meesha ugu dhowtay karo inuu tagaya laakiin magaalada holaca iyo dhawaatada iyo rabshado ka dhacaysa magaalada muqdisho waaye Puntland ilama qaybsanayso rabshadaas Jubbaland ilama qaybsanayso galmudug iyo hirshabeello ila qaybsan maayaan xamara gubanaysa taasna anagu ma ogolin liajli dalika waxaan taaganahay 1 minute loogu daray doorasho dhacaysa hal isugu tagayaa Dhuuso Mareeb halkaas ayaa muxuu ahaaytay looga heshiinaya nooca doorashada ay noqonayso kulli waa doorashada banba dhacaysa ina farmaajo dumo sharxaya waa soo sharxaya hadduu nasiib leeyahay waa la dooranaya waana taageerina xaq uu noogu leeyahay sharciga raacayna madaxweynihii dadku doorto waxa weeye waa taageerina haddii la dooran waayana haddii waxa weeye kuwii ka horeeya jidka ay mari jireen buu maray waxaan rabaa marka cayayaanka baraha bulshada qaybta beesha mareexan anigoo dadka xushmad badan u hayo si qaab badan aan ehlu lahay waxaan leeyahay haddaad qabyaalad bilowdaan horta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adigu madaxweyne ka badhigin isagoo madaxweynaha aragteen oo meeshan soo fadhiya markaasaad foto kala qaad iyo qaylo bilowdeen cidda ammaankiisa sugta iyo waxa uu ku sugan yahay iyo waxa aad ka ogtihiin ma jirto waxaan ognahay in magaalada Muqdisho dad naga dulqaad badan ma jiro
يعني hoteeladeenni adinkoo degan aad meesha nagu caysan oo nagu aflagaadaysan waxaad dhahdaa maxuu ahay kuwan wax jira ma aha anaguna waa isdhagoolinaaho hadda nin dirintiisii lagu fadhiyaan isu aragnaa waxaan maqlahay niman leh mooshin baa laga keenayaa qayro iyo kani horta waa iska propaganda mooshin xasan cali qayro horta cid ka keeni kartaa ma jirto kulli waad ma arki doontaan ra'iisul wasaaraha hawiyana ra'iisul wasaaraha hawiye wuxuu la mid yahay madaxweynaha hawiye waxba kama duwana ma jiro nin maanta xamar inta yimaado maxamed xasan cali qayro mooshin ka qori karaa ma jiro kaba soo tagay xildhibaano ka soo horjeedana mama jiraan maamul goboleedyadana mooshinada sideedaba waagi hore samayn jir waxaadan ogeyn baan idin sheegay marka la rabo madaxweyne in mooshin laga keeno xilligan oo kale guurkaana ay tahay madaxweynayaasha federaalku waxay adeegsan jireen maamul goboleedyada madaxweynaha maamul goboleedka lawaca Jubbaland may maqlaysaa xildhibaanada ka soo jeeda Jubbaland baarlamaanka ku jira waa inaad muxuu ahay diyaarisa ugu yaraan 3 xildhibaana laga rabaa haye aaw Puntland may maqlayhaa sidaas yeelaya 150 min 30 shantaas ku soo dartaa ra'iisul lagu tuuri jiray maamul goboleed hal xabo farmaajo hay meel ku ogtiin ma jira no maamul goboleedyada ninkan ay aaminsan yihiin isagay muxuu ahay gacan saar la leeyihiin maxamed cabdullaahi farmaajana wuxuu isku dayay hadda shirka meeshan ka dhacaya waxa la moodaa khayr inuu qaban qaabiyo laakiin ma qaban qaabin waxa weeye buul quraanyo ayaa madaxweyne farmaajo jafay isagaa isku jafay wasiirkii muxuu ahaa ninkii ra'iisul ku-xigeenka ayaantii ra'iisul ku maqnaa khadar iyo gudoomiye baarlamaanka iyo waa ku hadlay oo yiri dalku dawladda uu leeyahay 10 nin oo meel tagta loo joojin maayo kan lama yeelayo ballan isaaqo xamar jooga wuxuu ku leeyahay waxa ba'da samxa abdullaah farjuu soo diibo leeyahay kale waxaan qabaya kan yeeli ka waxaasa nimankan soo kiciyay runta ma rabtaan nimankan shanta war kuwa intaas muxuu ahay gacanta lagu hayo loo mooday maxaa soo kiciyay waxa la yiri wax doorashooyinka ku leedahay ma jirto halkaas khadar gulad khadar iyo ninkii muxuu ahay adiga madax bilcil qarxaweenka iyo nimankaasoo iyagu dantooda meesha ka arka anu ma garan karo kan ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxa haya ma fahmin laakiin muday iyo ninka la yiraahdo ii sheeg mursal waxa weeye inaan la dooranaynin ogyahay madaxweyne doon la saaran yihiin maalin igu darcawad waa cimriga taagin waxaasaa meelaha ka ba'eeyay waxay yiraahdeen dalku dastuur buu leeyahay kale uu leeyahay hay'ado kala duwan jira loo joojin maayo muxuu ahaa maamul goboleed iyo 10 iyo 2 iyo 3 iyo 4 midna loo joojin maayo taasaa soo kicisa nimanka maamul goboleedyada oo keentay inay shir degdega intii sugi yimaadeen ay dhahaan awoodana aan tuso maantana waxa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo ilaaha tawfiiqda waafajiye baa barta cabdullaahi yuusuf baralaha nimanka go'aanay soo saareen habeen dhawey go'aanka markay soo saareen waxa la yiri ma tegay ma tegi maysid walku waa labadii gaalada meesha joogta iliday waxa la yiraahdaa waxa jirta maamaha arbeedo tiraahdaa man laa yamliku quuta yawmihi laa yamliku qararahu dawladda federaalka ee Soomaaliya anagu ku faahay dalka Soomaaliya iska ajnabi male waxa carruurta yarada waxa baran xaq kala garanayna xoolaha meelaha ku sheekeeya waxa weeye dalka Soomaaliya 70% gaala wax siisa ninkan aad leedihiin waxba qabsanaya waa afgambilaya kan uu yeelaa leedihiin waxa weeye 24 kuna ajnabi yahay waardiyeysa oo mushaarkooda gaaladu bixiso waxa waardiyeeya ciidamo military ah dalka joogo gaalad mushaarkooda bixiso dhaqaalaha dalkan budgetka dawladdu ku shaqeysay 400 intaas oo milyan aad maqlaysaan 30% goolka brand laga soo saaraa 70% waxa laga soo saaraa muxuu ahaa waxa bixiya beesha caalamka dib ka leeyahay marka nin kaliya yani ay ka adagtaa fiir waxa la yiri bula waxaas inta la isaga dhiibay ka dhintaan ma saasa jirto waxaas inta la isaga dhiibo ay ka dhintaan war nin maantay muxuu ahaa hadii la yiraahdo haye anagu amaankaaga mas'uul kama nihin intaas kaliya ku barjabay waxa farmaajo ognay maxteeda markuu saas uga baxay taangi u dhaxga taangi hadii laga tago meesha ma indkiis maanta dul dhamaado ilaa waqtigaaga waa dhamaaday anaga waxa weeye talaya tusaalbidna waa naga diiday waxa weeye amaankaaga sugameena hadii la xagu aadeeda la taa muxuu qaban karaa waxa weeye xaqiiqdu soo laabtay waxa la yiri maamul goboleedyadu hadii adiga kula fudud yihiin oo kula bacagasaarta baabuurka oo kale hadii adiga kula yihiin annaga saasna lama aha waa niman muxuu ahaa stakeholders kamid ah dalka wax kule bulshadii qayb kamid ah haysta doorasho aysan iyagu raali ka ahayn halkan kama soconayso maya qof iyo cod gaalada xoogaa wuxuu isla halkaas ka nuuxi baashi muxuu ahaa la dhihi jiray waa niman wadanka intaas oo sano dhex joogo situationkiisa la socda maya qof iyo cod rabnaa musuqmaasuqan ka carruur anaga laftirkeena waa kula rabnaa laakiin nimanka wax kala dhaxeeyaan keen iyagoo leh qof iyo cod balka la imaw la kaalay
markaasaan ku aqbalayna halkaasaa loo istaago ma axmedoobo keeni kara ma daniyow keeni kara waa maya khiyaaliga meesha waa ka baxay wuxuuna tegayaa dhuusamareeb insha allahu tacaala leefka intaan ku jira inuu tegay ma ogi waxaan jeclahay in maanta ra-iisul wasaaruhu tegi doono isaguna beriya wuxuu ku xiga uu tegi doono halkaas ayaa la tegayaa mar kale waxaan leeyahay niman yahow mareexaan muxuu ahay aan waayahan xiriirka lahayn isku wanaagsanayn waxaan leeyahay aflagaadada iyo cayda iyo dulmiga iyo haaraanka naga daaya nin aad hoteelkiisii degan tahay ood maqaayadiisii raashinka ka cunaysood gaarigiisii isticmaalayso inaad ku qayliso tiraa waa meeshaan kaa tuura iyo kanaan yeelaya tuugow ahay warnimow nacasnimo idin taha annaguna dalkan waxaan doonaynaa rabshooyinkii iyo dhibaatadii soomaali talaxumada ay ku geli jirtay ama muxuu ahaa ka beel ahaanba haddii waa laydin tiirin karaa waxaad ogeydeen meesha la yidhaahdo 77 dagaalaa la galay dagaalka 77 la galay waxaa weeye dagaal soomaali ka tashata maahay go'aanka waxaa qaatay madaxweyne bal wax yar oo tusaalaha in tusaya talaxumada soomaalida maanta dad baa sabcinaya oo le madaxweynaha waa inuu saan yeelaa waa kan yeelaa kuwaasaan rabnaa gacmaha ka qabanno godadada dhulkeenu habeenkaa gelgelate heesaa la qaado haye bundihii dhurwaagii habalka gacan maroodi yeeshaan waa la wadamo soo maa maxaa ku xigay natiijada maxay noqotay ma taqaana hayaay ka soo baxay hayaay bal fiiri soomaaliya oo muxuu ahay dal curdina ah oo aan awood dhaqaale iyo awood military midna lahayn ayaa waxaa lagu weeraray dal muxuu ahaa 1500 sano maamul ka jira 77 aan ka hadlaya dagaalka guula xoogaa markii hore waa laga gaaray laakiin strategically khalad buu ahaa runtii tala nin xun qaatay runta in laga hadlo waa fiicanta dad badan ugu dhaleeceydana dagaalkii tee maxaa loogu qaado yiraahdaa waxaa weeye waxaa jirta maamaha Soomaaliyeed tiraahdo buur ohow ama buur ku tiirsanow Ethiopia oo muxuu ahay 1500 sano boqortooyooyin iyo dictatorship iyo balaayo adigu system iyo nidaam ka soo jiray nagana ciidan badanaa weerar ku qaadnay weerarka aan ku qaadnay saaxiibo siyaasadeed ma samaysan si haddiina lagu biyo keeno aan u badbaadno ee waxa weeye annagoo kaligeena oo waxba maaragta kala wadan ayaan weerar ku qaadnay iyadii 1500 sano soo jirtay ayaa saaxiibo la timiday markaasaa cawadhoodan program fiirsanayay nin waxa ka hadlay Kuubana 120 falayd ayaan ciidan ku qaadnay si maxaa Soomaaliya meesha uga saar waxa weeye maalintaas marka dadka in caadifad lagu kiciyo waxaan ka hadlayaa in caadifad dadka lagu kiciyo waxyaabo badan la sheegay waxa la yiraahdaa ciidamada Soomaaliya in lagu yareeyo waxyaabo la sheegaa dagaalkan laakiin dadka caadifadooda inta la kiciyo dhinaca wanaagga wax laga tuso la yiraahdo kana la yeela wada qarannimada ku jirto ee natiijada ay ku soo dhamaato burbur iyo kala orod waxa weeye horaan u soo aragnay mana yeelayno hadda idin sheegay doorasho qof codaha la qabana waxa kale afar nin taladood ma rabno ma dadka yaan lagu bilaynin Soomaaliya waxa weeye hadda deganaana ka jirta waxa weeye maamulaal la sameeyay dalku waxa weeye wuu kabanaya Soomaalina maanta walaalow wax uga roon ma jiraan ninku meesha uu joogaa loogu taga waa la gorgortama waa la heshiinaya waxa weeye haday nala gasho waa bariyana girkan ku dhigana in adarna soo raacaan leena nasoo raacni walba saan ku wada karno ayaan ku wadanayna laakiin yeeris iyo digtay wadan lagu xukumi karo ma jiro runtii indhaha la kala furo ugu dambeyn xasan cali khayre inuu isla sharaxo rabaa madaxweynaha qodobkaasna asal rabaa inaan ku soo gabagabeeyo insha Allah taala oo qalad uu sameeynaya madaxweynuhu qiyaamaya war horta maskaxdiinu waxa weeye waxaad moodaa inay fadhido aan biyadin kaga jiraan walba taariikhda Soomaaliya dib u raac Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ahaa yani 4 sano yani ra'iisul wasaare u soo ahaa ninka la yiraahdo aan Cabdul Ismaana sharaxay cid culaadisay ma jirin waliba waana ka qaadiyay madaxweynuhu noqday ra'iisul wasaare madaxweyne isu bedelay intaasoo jiraal arka laakiin madaxweyne dib u soo laabtay maanaan arag madaxweynuhu noqday alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin ma calfano waa la day kuwa adigu xogaa joogay waa la toogtay Cabdul Maxamed Cali Gaas ayaa wuxuu ra'iisul wasaare u ahaa ninka la yiraahdo Shariif Sheekh Axmed iyadoo la isculaadin on la iscaayin ayuu si gobonnimo isu sharaxay markuu sharaxayna labaduba waa guul daraystay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu isla sharaxay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud لسمع ولادين وحاوي iyaguna nasiibkooda iyo calafkooda ay meeshaas ka qaadeen maxaa diiday maxamed ninka xasan cali khayre oo nin dhalinyaro ah oo dalkan wax badan oo faa'iido ah
muxuu ahaa yani soo gaarsiiyey ama wax badan u qabtay in maanta uu nasiibkiisa baroobay ilaahu muusan hal cod helin hal cod ilaahu uusan helin sida salaam cali jeelle ilaahu u noqdaa salaam cali jeelle meeshu istaago cabaaru qudbeeyey kolide ujeedda ay aruma garan karo waxba uma diyaarsay ila tahay inkastoo uusan ka xumaan waxaa weeye waxaa la yidhi salaam cali jeelle eber waa kaasaa hadhow dambe soo kafta baan arko dhahay waxay soo weysa xataa hal cod inaad siisaan ahayd hadduusan hal cod helin hal cod macda hadduusan helayn xasan cali khayre annagu waxaan taageersanaa inuu sharaxu meesha tagu yidhaahdo waxaan ahay musharaxu taagan xilka madaxweynaha soomaaliya sababtoo waxaa weeye tan cid uga xaq lahu ma jirto cid uga xaq leh ma jirto wakti iyo maskax iyo wax walbana wuu gashtay uu maal gashtay ma fahamta calafkiisoo ka qaada dadkaas ordayuu ka mid yahay marka madaxweynihii yaad qiyaantay war maxay tahay anigu farmaajo gabadhu naga qabaanimayo aan kala xishoonno warreynimay waxaan idin sheegnaa aan kala xishoonno farmaajo annaga gabadhu naga qabaa waa ku xushmaynaa waa xididkeen weeye intaad ogeedna waa taageerayno aflagaada iyo ceeb iyo wax yacni naga raacay xataa waad ogtihiin waxaa weeye marka haddaad gobonnimada ka tagtaan nimankan isla soconeen nabadii nololan ka hadlayaa madaxweynaha beeshiisa ah gobonnimada haddaad ka tagtaan nin la yidhahdo garajaamac garaad cali wuxuu gunnimo anagnuna kula tartaba mayne anigu idin dhihi mayne gunnimada idinla googoosanayna taasaa idin leenahay gunnimada laftirkeeda ayaan idinla googoosanaynaay labadeenna waa tii dacaayad badis aysan ahayn aan kala xishoonno xasan cali khayrena faraha ka qaada ka xishooda indhahayaan lagu soo taagin waa wanaagsan yahay muxuu ahaa hawl fiicanoo wadaa dalkana maanta waa wallaahi waa billaahi waa tallaahi haddaan xasan cali khayre joogin tareenkaanu buurow ka dhici lahaa buurta tareenku inuu ka dhaca ninka ka celinayo istaarsada fiiri baabuur aad saaran tahay haddii darawalka saaran inuu yani hurdoodo bilaabo oo muxuu ahaa istaarsada maxaad suubinaysaa jidka inuu kasii baxa markaad aragto jidkaad kusoo celinaysa bas waxaad leedahay meesha kala dhaca istaarsada baabuurka ninka kusoo celinaya jidka waxaa weeye waa xasan cali khayre waana ku mahadsan yahay madaxweynahana waxaan leenahay xaqaad u leedahay inaad soomaaliya sii hogaamiso cidna kuma diidana issharax soo istaag imow muxuu ahaa calafkaagaad ka qaadaysaa laakiin extension aan samaynaya oo waan ku darsanaya oo gadaalan u ordaya oo 2 sano kalsooni daradaas meesha kala tag qofna kaamina yeelayso adna ma kuu soconayso sharafna kuu noqomee xataa haddii lagu siiyo awood soomaaliya aad ku sii maamushaa malihid oo waxaa weeye arrintaasu waxay noqonaysaa arrin aad dib dambe ka shalaayi doonto sababtoo ah qof loogu daray iyo qof lasoo doorta labay kala tahay madaxweyne daciifa saxiixiisa uusan jirin iska tacbaan u noqonaya ugu dambayn waxaan rabaa inaan digniin siiyo cunug yar oo reer aw xasana oo madaxweynaha u ah afhayeenka warfaafinta miyaaliida shalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xasan cali khayre ayaa wuxuu u yeeray saxaafadda uu la shiray uu la hadlay mar allaaliya markay sidaas uga soo baxeen dhammaan saxaafadda muqdisho ka howlgasho weeye mar allaaliya markay xafiiskiisa sidaas uga soo baxeen ayaa iridda waxaa u istaagay cabdinuur axmed mase cabdinuur axmedaa layidhaha miyaa moog yarka yare reer aw xasan oo fahad adeerka u yahay iridda u istaagay wuxuu yidhi soo baxa maxaa dhacay madaxweynahan idiin geynaya halkaasuu kula orday wuxuu yidhi 2 iyo 3 iyo hal baan waxaan idinkugu geenayaa madaxweynaha koox qayb yani saxafiyiinta meesha joogta ka mid ahoo waday idaacadihii ay ka shaqaynayeen waa reelmaamo laakiin hadhow idin soo boostgarayn doonaa dhalinyada meesha la geeyey waxaa la yidhi waxaan rabnaa marka hore inaad noo sheegto ra'iisul waxooda kala soo hadlay noo sheega haye kadibna waxaan rabnaa inaan wada shaqayno warar la soo gaaraya waxay sheegayaan in cabdinuur ka shaqaynayo tiim ra'iisul wasaaraha dacaayad iyo weerar iyo indhacadays ku qaada in uu abuurayo meesha ka raadinayo wixii oo kulansan maadaama uu arkay uu siri muxuu ahay tay ka faa'iideyso hebelkaan nuurow ogow waxaa weeye waxaad wadda waa la soconnaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan leenahay madaxweyne xushmad weyn ayaan ku haynaa dalkana waa soo hogaamisay shalayna waxaa weeye hadda abaalkii aan kuu galnay waad ogta maantana waxaa naga go'an
xilkaaga inaad dhamaysatood afartaada sano dhamaysato haddaad soo noqoto oo aad madaxweyne noqotona haddii annagu barteennaan taagano niman goba oo awalba waxaa weeye derinta kuu dhigayaanna xididaanna carruurtaada abtiyaashoodanna waxaan dareemaynaa waxyaaba adigu dabada aad ka riixayso in muxuu ahaa khayre lagula kici doono haddii aan ogaanno waa baaraynaa haddaan xaqiijinno dad adigu aad dabada ka riixayso ama kugu beel ha noqdeen ama shaqaale adiga ha kuu noqdeen oo khayre weerar ku ah inay jiraan waxaad ogaanaysaa sunniyaha iska xiirayna annaguna labadaas sunniyood waxaa loogu sameeyey wejiga sunniyahaas waxaa loogu sameeyey xoogaa sariigay leeyihiin ali qofka da wejigu muruxsan yahay ma qurux badna waxaa weeye sunniyahaasaan soo xiiranaynaa waxayna noqonaysaa markaas haddii annagana in magac naga raaco nima waxaa laga sheegay hebelow waa anna markaan wiil beeli lahay uri adiguna aad muxuu ahay aadna xoolo beeli lahayd laba nin oo muxuu ahaa xoogaa nin laandheeraya ninna xoolo badan haysto ay ahayno waa dirireen markaasuu yiri adaba markaad xoolo beeli annaba markaan xoolo beeli annaba markaan wiil beeli lahayd aad xoolo beeli sababta waxa weeye kana weerar qaadaya kana xoolaha laga dhacaya soo maaha nin wiil weerar qaadana dib uu soo dhimanaya calaa kulli xaal waxa weeye annagoon marna diyaar u ahayn in muxuu ahaa aan noqonno qoladii boqolka soontay baktiga ku afurtay madaxweyne xushmadan ku haynaa waxa aan dalkan ka soconayn sheekadu waxay taagan tahay tii haamaan iyo fircawn waxay ku heshiiyeen la yiri fircawn waa tuu ilaahay sheegtay buu yiri aan rabbakum al-a'la marka haamaan ninka la yiraahdo oo awel isku ogaay inuu u camiro oo uu yiraahdo ilaahay yaan ahayd ka igala gadoor waayo yiri hawshiyaa la suuq geliyay waa la waday maalintii dambe ayaa waxaa la yiri fircawn oo hurda islaano timid orgi yar oo bakti markaasay tiri haamaan ha ilaahay waxay tiri orgiga ha ii noolaysiyo waa iga dhinteen markaasuu yiri hadda waa hurdaahe asaa hadhow noolaysanaya mid kan qaado orgi fircawnku leeyahay siiyey oo yar ilaa waxa lama noolay karo wala sugiyo fashilku ilaalinay moogta hadhow baa fircawn soo kacay wuxuu yiri war fircawnow nabnaagaa timid maanta waa fashil ma gaarno orgi meyda ayay keenta laakiin aqliyan ku xalliyo orgigi yaraaye hebelahaye xoolaha ku jiraan siiyey kii baktiga ahayna dee weelaha saga tuuraynaa waxaan idhi annagaa noolaysanayna markaasuu maxaad ii kici weyse waa noolayn lahay maxaad ii kici weyse markaasuu yidhi xataa ana kelmadda xataa ana halkaasay ka timid mogta xataa ana ya xataa ma anigaad ileedahay yuri baktigaa soo noolaynaya anig shalay ku camiraya kule waa ilaahay waryaa wuxuu yidhi kaadib atay baanta kaata madaxweyne waxaan leeyahay marka xataa annaga ha nugu dayin ee cagahaaga dhulka dhig ilmaha dhedhela baraha bulshada ka qayla madaxweynaha yeelay aan difaaci jirnaayana xamar maxamed farmaajo annagaa ku difaacana waxaan farmaajo annaga nama difaacin wuxuu naga difaacana ma jirto magaalada muqdisho ninka joogana mar kale aan ku celinayo nin hawiyaa ra'iisul wasaaraha hawiyaha magaalada muqdisho jooga madaxweynaha hawiyaha la mid yahay mooshin cid ka keeni karta male cid raacday kartaa hore ma jirto hadduusan isagu wax raacday cid raacday kartaa ma jirto niman yahow tawfiiqda ha naga xumayna waa afgobaadsanayna saddexdii sano la soo dhaafana runtii waxaan arkaynaa dad waa waalihiin aad leedihiin oo si toosan noo aflagaadiina ama gabadha madaxweynaha la dhalata ha noqoto ama kan dabcasar xoolaha ha noqoto dad si toosan noo ataagaraynaya arkayn cawo dhowey dabcasar tow nagu sameeyey konton jeeraan iska celiyo wallah waa ceeb war ugaaskeenna caayo waryaa ugaaskeenna bal fiiri aniga hay caayana kaba yar waa tuug waa mujrim waa khaa'in waxaad rabta idheh laakiin ummadda marka aad weerarto madaxdooda ugaaska mursada qiimihiisa war ma ka haysaa aad inta dabcasar waa waalan yahay aad dadka u sheegtaan ma waa la wafayoye aad inta hoos ka soo bartaan aad leedihiin ord ugaaskooda caay quunlow karsaaci kanow yeele war mursada garas weligiis ma cunin quunlana ma yaqaane waa dad xoola leh caqligiinu ha shaqeeyo garasyo quunlo cidda taqaane nimay waxaan leeyahay waa waalan yahay dambanida ka yeeli mayno dadkiina waalan iyo kuwiina fayooba naga ceshta haddaad diidaan sow maaha hadda waa la arki doonaa insha allahu tacaala wixii la kala qaado wixii aan khalday waxaa weeye shari nafteyda iyo shaydaanay ka ahaadeen wixii aan saxana ilaahay baa ku mahadsan layfafkana waan wadi doonaa